qaadeen dadka shaki badan baa galay horta fanaantu way wada heesaan heesa way wada qaadaan laba qof oo kasto fanaan hees wada qaadana maaha inay israbaan ama iskuursadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dilaati baa khayrta qaaliga magaciisa tacliisa ka joogtaan maanta waxa la xilin 2 saacadood dhakhtar bay soo qoray muxuu igu leeyahay garanaysaa talent wad leedahay keep go waa iska kaftamaya aad ba umaasantii soo dhawaada asxaabta qaaliga aad baan idin wada jecelahay magaciisa joogtaan muuqaalka sii share gareeya subscribe tana ma garanayo subscribe loo saari waayo xaasnimo ka tay ilowshimi ka tay dadkayga ma garan karo muuqaalkii dad fiican ba daawanaya kumaan ba daawanaya kunun ba daawanaya kunaan isku tagtagay ba daawanaya balse haddana muuqaalkii kumanaan ku tageen haddana subscribe badan ma keenayo ka waa hagaag imikuna haylaawin intaas kadib waxaan doonayay in dileero wadaago arooska Mrs. Xiis ya cawaalaada maxaa ka jira marunba ma beenba maxaan ka ogahay maxay soo gaaray baraha bulshada waxa ku jira maxaa ka run ah maxaa ka been ah maalmihii ugu dambeeyay baa mashquulay soo dhawaada inta soo dhameystiran baa diga daba geenaya horta hees qaaliyan xasuusta horta heestaas maalintii ay soo wada qaadeen dadka shaki badan baa galay horta fanaantu way wada heesaan heesa way wada qaadaan laba qof oo kasto fanaan hees wada qaadana maaha inay israbaan ama iskuursadeen laakiin mararka qaar fanaaniinta qaar way isjeclaan karaan waa bilaadan wadad wax ka wada dhaxeeyaan wadad iyagoo wada heesana aan waxba ka dhaxan karin ayagoo wada heesana wax ka dhaxan karaan haddaba maalinta heestaas ay soo baxday iyo intii ka dambeysayba waxa baraha bulshada aad u haysan jirtay cawaale aadan iyo Mrs. Xiis way iskuuseen laba fanaan oo la janaana weeye intaas kadib waxaan arkay Mrs. Xiis soo dhaweysay kelmad baa ku jirta markaa meesha aad u baahan loo yara dareemo af xabash mise af oromo labada mid kamid ahna way baraysaa bay la dhageystay salaam nachu odaygi course wallahi yaabay dadalku wala bajacsiye odaygu dhawaan soo ku mahmaaya meesha waxa ku jirta xaajiga ama odayga ana xaajigu sidan macnaha ama odayga sidan garasa kelmad ixtiraameed xaajinimo ama odaynimo ay u qadarinayso ee ku jira meesha asxaabnimo ayaan ku jirin fahma aroosku garanaysa aanu jirin balse in la wada shaaciyo dadka loo wada bandhiga aanay ahayn balse arintan hadda soo baxday aanu waqti hore ay soo gaadhay oo aan ogaa imikana baraha bulshada ay qabsatay waxaana loo haystaa arin hadda dhacday maaha arin hadda jirtana maaha waaraan in badan aan maqlayay in badan aan ogaa balse laga qurux badan inaan raado saasaan maqlay ama saasaan iri Soomaalidu waxbay maqlayaan way la shirimanayaan sababtan uga hadlayaan oo ma jeclaan ka hadlana waxay ahayd propagandada iyo arrimaha media dhex yaala anigu inaan iyaga hortood aan ogaa macnaha waxaan ogaa heestan markay soo qaadeen kadib dhowr bilood yar kadib baan ogaa waxay ku dhowday sanad bay ku dhowday intaan maqlay intii un baa imkana baraha bulshada la keenay marka waxa weeye horta marka waad hambalyan leeyahay aad baan ugu hambalyeynaya arrin hadda jirto un maaha arrin maalmihii ugu dambeysay dhacday un maaha waa arrin in badan ba socotay in badan nadam garanaysaa laba qof oo isku qalmo oo la janaana ay yihiin waxaan arkay dadka qaar inay lahaayeen nin gabadh labaad guursaday ama nin gabadh kale guursaday uu dhintay waa nin dhintay oo kale macnaha hadalla noocaasa dadka qaar baa arkay soo bandhigayay cawaale aadan inuu xabsi guri ku xariisan yahay oo aanu ka soo bixi karin Djibouti waa uu ka soo baxay Djibouti jigjigu jooga xabsi guri kuma jiro cidna uma xidhna fanaan la qadariyo la jeceliyo haddii arrin siyaasadeed ay ka dhaxaysay Djibouti markii uu ka maqnaa oo loolan siyaasadeed uu jiray waa fanaan dalkiisa uu mucaaradi karaa fikirka uu ku diidi karaa anaga laftiga wax waanu diidi karnaa oo mucaaradi karnaa taas wiligeed bu qofka wadaniga ay dalkiisa ama maamulkiisa dhaliili jiray amaanana jirayna taasi hadday jirtay ee xumaan xitaa keentayna waa mid la dhameeyay oo la soo afjiray bay ahayd wax laga labeynayay ama wax xumaan oo kale ma jirin marka waxa weeye horta caanimada Soomaalidu dhibaato badan bay leedahay aflagaado badan bay leedahay been abuur badan bay leedahay
bulshadaada iyo dadka aad wax ku dhex tahay oo ku daba soconayo oo ku yeesayo oo ku quursanayo oo ku bahdilaya oo haddaad tallaabo qaada ama sida bini'aadanka caadiga aad u yara qaldanto la buunbuuninaya ayaad leedahay marka ta Soomaali ahaan oo quraatana ma aha waa adduunka oo dhan ciyaartooyada caalamka iyagoo gaala ah ayaa ciyaartooyga gaalka ay kubadda xitaa ciyaara hadduu meelaha qaar khamri ku cabo waa la soo sawiraya waa la soo dhigaya waa la buunbuuninaya inay khamri ku cabi kan cabi babba inta kale dhawaa cabe marka halka waxa ka muuqata dadka caanka ah inay ka saameyn badan yihiin dadka kale dadka caanka ah in shariif iyo shariik dad waalan iyo dad miir qabaaba ay ku daydaan ama ay jeceliin haddii maanta dad aniga ay taageero oo jecel ay jiraan oo yarkaan inuu sigaar cabayo waa suuragal in sigaar cabaan anigoo balwada ka faanaya haddii yarkaan suuragal dad badan ay ku daydaan iyaguna sigaarka ka faanaan balwadana ay ka faanaan marka waxa weeye dadka caanka ay saameynta noocaas ah bay horta leeyihiin waana sababta mar walba loo dabagalo Soomaalidu laakiin way ka yara xaq jirtaa mar kasta qofka duu wanaag sameeyo iyo hadduu xumaan sameeyo xumaantiisa la bambooniya xumaantiisa meel walba ka dhacda laakiin dalal kale waxay ku fiican hadduu wanaag sameeyana wanaagiisa la sheegaa waa lagu dhiirigeliyaa waa la bambooniyaa wanaagiisa iyo quruxdiisa la soo bandhigaa haddii uu qalad sameeyana waa la soo bandhigaa war wixii shalay wanaagga sameeyay xumaanta inuu sameeyay laakiin inaga wanaag wax alaali wax la yiraahdo caawiye bixiilo umad Soomaali suuq ku shubtid madinta ku milyan Soomaaliya caawisi madinta ku xadiis akhrideed hada maalin ku taada naga taga xoolaha xooluhu kala jaad qura tiraado waniki xoolaha nagu sheegay war maalin qoran indigu sheegay hadan xataa xoolo idin yiri midi dadkayga hayn midi canaanan karin miyaanan dimaagi karin what maxaa qaldan marka waxa weeye marnaba Soomaalidu dhibaato iska leedahay awaalaadan iyo Mrs Xiis la janno isku tagtagay waxa fikir suuqada legends of legends in the legends or your legends because maxaa yeelay English waxay baray idla yare أنا أرضي إلا يرانه English كوا براي كراسة مركا is a good quality بتنو كلا الله هذا إلى يا كعبال مريم معنا كي إلا يرى سدو English كنا براي أنا جاي فنانين بدن بكولج كيسا مركا وذا كان يشبيه تعرف ده سنة كم ده هاي يا من English كا very hard بانكوا هاي nobody speaking after me أدو anyway هل كهذا كم ده بعد كتير مفهمتين I know ويا هاي I know مهن لكن وحي I know ما أي نوك وحساس يوشيك شري وياي إنت المقال كل حكم مدرنا حد يقتك سايا مع الله عيابانا كلا أي نوك بلني وانوجع علشان no I know أي نوك وانوجع إن أي هوشني شفتو بارك الله بانو لنا هاي شو بح بلوي برد بانو لنا هاي بومبونيت يحد كبحة إيو كداية شلافين تكداية مقرنسا تدبنا كي نعيب بدنا كلاه فرحون يردي جايا مركها اللي جدايو dadkii isku sida barakallahu isku duceeya wax walba calif bileen wax walba califkiisu qaadanaya hore u socdan leena ma sha Allah